ugu horeyn ilaahay baa mahad leh marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane Muuse Biixi cabdi oo ii magacaabay shalay agaasimaha guud ee horumarinta wasaaradda horumarinta biyaha aad buu madaxweynuhu ugu mahadsan yahay xulashada oo ii gartay in aan xilka qaranka u qabto ummadda ugu shaqeeyo aniguna waan gudoomay aad buu madaxweynuhu u mahadsan yahay wasaaradda horumarinta biyuhu somaliland muhiim bay u tahay wasaaradaha culus ee runtii shaqooyinka waaweyn ummadda u haya bay ka mid tahay somaliland waxay ku taalaa geeska afrika oo dee dhul oomane u badan biyaha roobka ku xisaabtama waxay u baahan tahay kolleyba in horumarinta biyaha dee siyaasad qaran iyo lagu wajaho mar walba wasaaraddana dee waan tegi doonaa iminka ayaan cusubahay oo magacaabisteedu shalay unbay soo baxday tiim baa igaga horeeya sii shaqaynayey oo somaliland u shaqaynayey oo wasiirku hogaaminayo kuwaasaan ka mid noqon doonaa dadaalkaygana waxaan gelin doonaa sidii himilooyinka madaxweynaha somaliland uu ka lahaa wasaaraddani ay loogu guulaysan lahaa tacab iyo dadaalna waxaan gelinayaa si ummadda somaliland ee aan ka dhashay ee aan jecelahay ay horumar iyo mustaqbal qaaliya u gaari lahayd halkana hore uga sii socon lahayd maalinta ka dambaysa horumar la taaban karo u gaari lahayd xagga biyaha oo baahi weyn xagga somaliland bulshadeeda ka haysatana sidii mar walba dadaal loo gelin lahaa wax ka qabashadeeda bulshada somaliland fariintaan u dirayaa haddii aad weydiisay waxa weeyaan dee wada jir iyo awoodda shacabka iyo awoodda xukuumadda oo la mideeyaa waxay dhali kartaa horumar degdeg ah marka ummaddu inay iska kaashato horumarkeeda oo biyahaasi ka mid yihiin oo baahida loo qabo dee ummaddu wada og tahay iyo dhinacyada kale horumarkaba in shacabka iyo xukuumadda iyo ummadda somaliland iska kaashato isugu wada tagto fariin ka qurux badan oo dir ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank